Bismillah, assalaamu calaykum. Waa idin salaam asxaabta meel walba joogtiin kusoo dhawaada channelkeena Bushra Cooking and Healthy. Maanta waxaa rabaa inaan idinla share gareeyo remedy yar oo aad u fiican oo dadka timaha dandruffka oo la iga soo codsaday iyo meesha madaxa cuncunaya scalpiga oo itchy scalp haystaan. Insha Allah marka waxaa sameyneynaa si oo dandruffkana kaaga baxo scalp-gaagana uu scalp caafimaad qabo u noqdo oo cuncunka ka baaba'ay sida ugu dhaqsi badan. Remedy yar oo aad kaale arag u maxaa la dhahay gabdho iga soo codsadaan qaybta commentiga. Insha Allah kaasa marka rabaa inaan idinla share gareeyo. Marka waxaa u baahanahay basal u baahanahay iyo liin iyo sanjabiil. Liinta waxay ku sameynaysaa saa u ogtihiin dandruffka ka qaaday cajiib waaye iyo sanjabiishana sidoo kale basashana waxa waaye antibacterial waaye waxay la dagaalamayaan infectionka la dagaalame. Yogurtkana sidoo kale plain yogurt u baahanahay asagana antibacterial waaye kaligiis xataa timaha waa loo isticmaalaa inta biyo yar ku qastid scalpiga marinay after 30 minutes waa laga raacsiyaa. So hadda ani maxaa sameynaa si aa u heshid timo maasha Allah oo dandruffka dhaqso kaaga baxo within 2 jeer markaa marsatid weegiba dandruffka aad isku arkin. waxaa sameyneynaa waxaa isku daraa dhowr alaaba isku daraa sidoo kale basasha maxay kuu sameynay timahaaga haddii oo grey ka soo galay dadka waaweyn camal timaha u madoobeynay dad yar waxaa jiro oo dhaqso oo xiro stress iyo waxaas ka soo bixinaysa ayadana hadda markasta isticmaashay juicekeeda timaha cirada way ka baabi'inay timahaaga always madow ku ahaanayaan shining ay ku siinay sulfur ay haysataa timo qurux badan ka helaysaa nourishing way ku sameynaysaa yogurtka iyo basasha iyo liinta markii la isku daro tin waxa ku soo baxayso qurux badan oo maasha Allah marka hadda basashan iyo waxa soo hoolaa sanjabiilka waa arkayna marka biyahooda u baahanahay وكاسا مركا بسش واسو دميي دينا يريرا كو هولايا كوس سي biyaheeda dhan aa u heshid marka hadana sanjabiisha sameynayna waa kana marka asxaabta sanjabiishii labada gabal waa soo hoolay asagana qaybta yara ku soo hoolay hal jab waa isticmaali kartaa qiyaasta timahaaga haday timahaaga yar yihiin haday timahaaga badan yihiin sidaan camal laba xabo basal iyo laba gabal oo sanjabiil enough waaye markaad waxa sameyneynaa baaquliga soo qaadanaynaa iyo caanamirka soo maxaa u baahanahay inaan ku shubno sanjabiilka waa miireena biyaha ka baxsaneena marka waa kana biyihi waa ka dhameeyay sanjabiilka waa kaasa juicekiisa maasha Allah waxaa loo isticmaalaa jidad badan loo isticmaalaa sanjabiisha marka maanta qaabkana idinku tusaa especially abaayada iga soo dalbatay oo scalpiga ka cabanaysa oo dhaysi scalpiga uu ka xanuunsan yahay I hope inaad ka faa'iideysatid hadda waa soo hagaajinay then basasha soo miireena so marka waa kana juice oo basasha qashinkoodan waa kaasa juice basasha waa u jeedin xoogaa waaye xoogaa fiican waaye like 3 qaad camal kii sanjabiishana waa kaasa marka hadda waxaan u baahanahay inaan isku darno insha Allah waa isku darsaneynaa so marka isku dartid yogurtka u baahanahay iyo liintan wax yar isdhexgali qaado ama laba qaado tintaada intay tahay oo yogurt ku darsanaysa marka yogurt ku darsanayna ani hadda laba qaado bara ku daraya waa kaasa marka laba qaado iyo bar yogurt ku soo daray si fiican isku dhex galina hadda rabtid oo malab jeceshahay inaad madaxaaga marisid malabna waa ku dari kartaa is good aad uu timaha ugu fiican yahay malabka soo ani hadda maxaa ugu talagalay as a dandruff scalp itchy scalpiga saas waxaan ku darsanaynaa liin dhanaan
alaabtan aad u jilicsan tahay. waxaa sameynaysaa madaxaaga marka scalp-ga ku masaajaysaa, then afka hore timahana waa marinaysaa, tinta dhan waa marsanaysaa. waxaa kaloo sameynaysaa bacaa gashanaysaa, waxaa ku haynaysaa like 30 minutes 40 minutes intii aad u dul qaadan kartid. wax yar inay ku cuncunaana laga yaabaa, cause hadduu scalp-gaaga infection haysto obviously wuu ku cuncunaa, madaxa wuu ku cuncunaa, but wuu shaqeynaa markuu madaxa cuncunayo. waxa waaye wuu ku caawinaa, it helps. waxay sameynay shaqo because way kulushahay soo maahan. sanjabiisha way kuleel, basashana kuleel waaye, liintana kuleel waaye, so way ku shaqeynay. then waxaa ku haynay 40 minutes. markaa ku haysid iska dhaqaysaa, shampoo fiican ayaa iskaga dhaqaysaa, kadibna so bas waayo, intaas waaye marka insha allah. marka alaabtan haddaa markasta laazimatid, tin waxay yeelanaysaa maasha allah qurux badan, caafimaad leh. once timaha dandruff ka baxaan oo scalp-gaaga uu scalp fiican uu yahay, timahaaga timo caafimaad la noqonayaan. kadibna timo qurux badan oo tiro badan ay yeelanaysaa. bashasha timaha way badisaa, way qurxisaa, way madoobeysaa. yoogadka timaha wuu ku dhalaalinaa, nourishin wuu ku sameynaa. maxaa la dhahay, liinta dandruffka kaa dilay, ginger, sanjabiilka timaha isagana wuu u fiican yahay, wuu badinaa. waxaan dhan fitamiinada ku siinayaan. importantina waxaa waaye inaad gudaha jirkaaga aad ka shaqaysid. hadday caloosha ku fadhisa camal caloosha aad bixisid, soo caafimaadka kow muxuu ka imaadaa gudaha inaad iska nadiifisid way fiican tahay. kadibaa waxaa arkaysaa resultiga waxaa marsatid, ama boodiga ha ahaado, ama madax ha ahaado, ama faceka ha ahaado. qurxinta inaad gudaha iska soo qurxisid waaye oo soo nadiifisid, kadibna banaankana markaas easy waxaa marsatid waa dareemaysaa. sidoo kale waxaa sameyn kartaa abaayada iga soo dalbatay iyo qof kasta u sheega insha allah dhammaantiin. qofkii timaha cuncunayo kale, olive oil intuu warm ka dhigo kuleel wax yar, tinta lagu masaajaa. timaha masaajka aad ay ugu baahan yihiin. once in a week timahaaga waxaa la isku dayaa in la masaajo oo deep massage loo sameeyo, oo saliid badan aad timaha ku shubtid, like maxaa la dhahaa, timahaaga saliid inay ka bataana la rabaa oo kaa daadaadato. soo timahaas way korayaan, way fiicnaanayaan, timo qurux badan ay noqonayaan oo nafaqaysan. yacni dry ma noqonayaan, timo waxay noqonayaan xabad leh oo is haystaan. timaha massage markii loo sameeyo dhiigga ayaa furfurmanayo tinta maasha allah. waxaa kaloo la sameeyaa tinta, waxaa kaloo sameynaya tinta inaad trimming ku sameysid bishii hal mar, inaad timaha hoos iska jartid si ay aflaaqada ay kaaga dhamaato. timahaaga markasta markaad jartid, damoo aad jartid damoo ay ku dheeraanayaan, damoo aflaaqadana ay kaa baxayso. marka timaha waa la trim gareeyaa. hadda saaluun tagi kartid, saaluun ha kuu trim gareeyo, haddii kalena guriga waa lagu trim gareysta. adaa maqas nadiif oo cuseeb ayaa ku jaranaysaa, oo only timahaaga inaad u isticmaashid isku day. shanlada nadiif, yacni wax kasta inay clean ahaadana fiican. marka timahaaga waxaa ka dareemi doontiin insha allah, waxaa arkaysiin timo caafimaad leh oo nadiif ah, oo aflaaqa lahayn, oo jajabeynin, oo kaale arag ah, super maasha allah ay noqonayaan. marka intaasaa idinla sheer gareynaya asxaabta, aad ayaa u mahadsan tihiin. soo haddaa ka hesheen videogan, like ii saara, subscribe, like ii share, commentiga ii reeba insha allah, dhiirigeli ayuu ii tahay. aad ayaa u mahadsantihiin waqtigiina. so intaas iyo see you the next video insha allah. asalaamu calaykum.